السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد أسد آدم فراي هلكا أد نقد ونيسين وأسد فراي ستوديو. ما أنتو حيلا جوجا إن صاحبكي مقعد محوها. What؟ مقعد ميل إرنا مئتا مقعد بنكسان ميلينك كويرتي. ورا كلا إن شغل أنت برنامج كودنيو مقعد أنا شاك نداي مقعد ميل إرنا ميلك جيدو سوا. مسكو أنا I don't care. أنا ما حاجة كلا واحد ليدا. ده عريسين من كان. إن magacaygu waa Asad Adam Fry halkaad naga daawanaysaan waa Asad Fry Studio. maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah in dhibaatada kalsooni darrada ah ee kala haysata siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo mujtamaca Soomaaliyeed iyo kalsooni darradii ka dhaxdhacday ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta dhaxdooda iyo waxa ay kalsoonidu tahay ayaanu maanta falanqeyn doonaa. waxaan sidoo kale wax yar taaban doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo beenta iyo fikradaha shirqoolka ah ee dadka siyaasiyiinta ay isticmaalayaan marka ay rabaan inay bulshada Soomaaliyeed ay soo jiitaan iyagoo inta badanna been sheega. waxaan su'aalo yar weydiin doonaa saaxiibkay careysan marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sii guda galaynaa barnaamijkeena. waxaan ku weydiiyey saaxiib Asad waxaan ku weydiinayaa kalsoonidu waa maxay kalsoonidu? kalsoonidu maxay tahay? ummadda Soomaaliyeedna siyaasi noocee ama qof noocee ah ayay kalsooni ku qabi karaan? qofka ay kalsoonidu ay ku qabi karaan qofka ay kalsoonidu ku qabi karaan waa qof noocee ah? kalsoonidu se laftigeeda maxay tahay? markii la yiraahdo kalsoonida shacabka iyo u dhaxaysa waxaan ka hadlaynaa iyo siyaasiyiintan ka hadlaynaa. adoo ku bilaabaya magacaaga. dabcan lama su'aalay warsati kalsoonida ma ata ay saata inuuna kalsooni ka qabno inuuna aaminno maaha. horta kalsoonida may wahaa wala nafta ka xasilaasiya kalsooni qof walba oo aad nafta ka xasilaasa oo aad aaminsanta in micnaha wanaag may dhibaato keen ka sheenana walba oo dhibaato aad in ku absadaan ya horta kalsooni ka qabaasa. tusaale ahaan markii siyaasadda seeto wala una geek ku hadlaan waa siyaasad waay. siyaasadda markii uu roogna may kalsooni ka qabo korteeha qofka aad an aragaasi in muwaadin sax ee horta muwaadinnimada ma in aad Soomaalina aad ka dhalatay laakiin muwaadinnimada may waha in aad wadanka walba micnaha in ka xad gudubaan sovereignty shay ama micnaha madax banaanidiis. dabcan marka ka shakhsi ahaan kalsoonida may waha qof aad nafta aad ka aamini karto waay. qof aad wadanka aad ka aamini karto waay. qofkaas marka ma eraanaha micnaha taas ma eraanaha kalsooni eraan. okay aad baad u mahadsan tahay. qofka siyaasiga hadaba qofka siyaasiga ah la rabo inay ummadda aaminto waa qof noocee ah. ummaddu qof noocee ay u baahan tahay. siyaasi noocee ayaan u baahanahay. qof noocee ah ayaa ina badbaadin kara dalkana. qof noocee ah ayaa badbaadin kara. qof nooceen u baahan wali aaminaan horta qofka markii uu aaminaan oo kalsooni uu siyaana may fiiriyaanaha haddii uu saleeyay number 1 ilaa wala una digeek aan baahan inuu ku roorno horta hal qodob waay. qodobka inka horeey qofka Soomaaliga markii siyaasad seeta wala inka horeey inuu ku roorno aan baahan may waha number 1 qofka inuu fiirina ma taqaanaa criminal chronology shay ama criminal history shay. haddii qofka criminal history in la hayna dabcan horta qofka markaasaytiya marka inka horeeyta albaabka inka horeeyta ya anfuraana. laakiin haddii uu aragno qof dambiile horta qofkaas ma baa inuu ku wada hadalna absolutely kalsooni ka aaminaan imika aaminaana inuu ku wada hadalna meel ma bataalo qofkaas may waha dabada haraanta inuu ku galiino waay horaan dareerakaas waa qofka inuu macnaha credit report shay nadiif inuu hada waay oo dambiile hayno waay. number 1. number 2 qofka ma baahna inuu taariikh nololeed shay uu dib anfeerina wali uu qobdi inuu feerina. exact sababtoo ah waxa weeyaan ma taqaanaa adiga tusaale ahaan haddii aad gaari leedahay oo kale gaarigaaga marka uu ka halaabo ma waxaad raadinaysaa dentist mise waxaad raadinaysaa garaash baad raadinaysaa ama haddii uu iliga ku xanuuno caqsigeeda ma waxaad tegaysaa garaashka tegaysaa mise waxaad tegaysaa dentista tegaysaa dabcan haddii uu gaariga ka halaabana garaash baad tegaysaa dabcan. marka
ummaddu qofka ay u baahan tahay waa inay horta dadka ka kala taqaanaa waa inay garanaysaa qofka ay u baahan tahay waa inay mujtamacu uga soocan yahay qof noocee ah ayaad u baahan tahay walaalayaal marka qof noocee ayaad u baahan tahay aan ku leeyahay horta waxaad ogaataan ummadda Soomaaliyeed aan laga dhaadhicin karin oo aad ugu adag ba adiga hadda i daawanaya war adigu shakhsi baad tahay qoyskaagana waxba ka gelin qabiilkaagana waxba ka gelin qof ay wax ka galeen ma jirto qofka haduu mar qaangaar noqdo inta aad mas'uulka ka tahay caruurtaada ayaad mas'uul ka tahay xitaa xaaska markii ay siyaasad iyo wadan la maamulay ay tagto qof waliba aragti ayuu leeyahay oo uu ku dooranayo siyaasiga wadankaas maamulaya qofku waa inuu ku ahaadaa qof adiga ku tilmaaman ama aad garanaysid sifa aad ugu hagaagtid waa in wax aad adigu qofkaasi aad ku taqaanid ama ma taqaanaa aad ku sifeyn kartid waxaasaan ku dooranaa qofkaasi ayaan jeclaan lahaa inuu wadankan hogaamiyo sifadaas waa inaad yeelataa sifa noocaasa oo kuu qoran 1 2 3 4 5 waa sifooyin waa inaad adigu leedahay oo aad ka aaminsan tahay qofka wadankan Soomaaliya lagu aamini karo inuu leeyahay marka aan ku leeyahay qofka aad adigu rabtid macnaheedu ma aha qof reerkaaga inuu wax noqdo ay laakiin ummaddu ka kalsooni baxday طبعا meesha kuma jirto waxa laga yaabaa haddaad reer ahaan u fikirtid ama qoys ahaan aad u fikirtid dabcan annaga qabiil baa dhibaato nagu haya laakiin wadamada qaar waxa jira qoysas dhibaato ku haya hada Sacuudi Carabiya oo kale qoys baa dhibaato ku haya ma fahmaysaa marka adduunyadu dhibaatadu way kala duwan tahay qof waliba dhibaato asiga u gooniya buu leeyahay marka anaga dhibaatadeena waxa weeyaan haddii dhibaatada anigu aan qabo lagu bees gareeyo tanaad adigu qabtid isku dhibaato ma noqon karno hab aragaagana hadii lagu bees gareeyo hab aragayga de macquul maaha wax suuragal maaha soo marka qofku waa inuu leeyahay wax uu ku dooranayo iyo inuu yaqaano qofkan hadii uu doorto inuusan dhibaato keenaynin oo meeshaasi uu ka helayo wixii isagu u baahnaa sida tusaalaan idan soo qaatay oo kale hadii uu goosku ku xanuunayo hadaa dhakhtarka tagtid oo dentista tagtid gooskaas waa laga siibaya laakiin hadaa garaash tagtid dabcan laga ma siibayo hadii uu gaariga ka halaabana dabcan dentista ma tagaysid waxa tagaysa garaash ba tagaysa hadii ma taqaan taayirka gaariga uu ka banjaro Soomaha su'aasha afraad hadaba waxay noqonaysaa ummadda Soomaaliyeed dhibaato weyn baa ku habsatay dib weyn baa ku dhacay dabcan laga soo bilaabo 60kii ilaa iyo maantadan aan joogno 2020ka waa 60 sano oo afka ka xiran waay xilligan hadda aan anagu taaganahay dabcan ma facweynin Soomaali hadaynu nahay dawlad ahaanteena markii laga hadlo laakiin dadku waxay u maleeyeen dhibaatadu inay bilaabatay 91kii iyo wixii ma taqaan 91kii ka dambeeyay walaaliyaal dhibaatada Soomaaliya ma bilaaban 91kii iyo wixii ka dambeeyay waxay bilaabatay 1960kii ayay bilaabatay dhibaatada Soomaaliya soo marka maanta maadaama aan joogno 2020ka dabcan qof waliba uu ka dharigsan yahay nolosha aynu maanta ku jirno ummadda Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan qof noocee ah ayaa ka saari kara dhibaatada maanta jirta qof noocee ah ayaan u baahanahay yaa inaga saari kara dhibaatada noocaan si Soomaali u noqoto oo saaxadda siyaasadda ama saaxadda caalamka ay ugu soo noqoto oo Soomaali sharaf leh aynu aragno dabcan sharaf waan leenahay ilaahay xaqiisii baan sharaf ka leenahay laakiin marka ay dawladnimo iyo nidaam noqoto aad baan u sharaf taranahay taana wad ila qiraysaa saan rajaynayo marka qof noocay ayay Soomaalidu maanta u baahan tahay inuu dhibaatadan ka saaro dad nadiif in la helo horta taariikhdii ama credit report show nadiif in la helo qaacinimo tuugnimo aan ka jarna macnaha qabiil hubayoon aan ka jarna dabcan xitaa hadii aad waliga wal indilna laakiin qabiilka hubayay jirtay dabcan taariikhda damba ma fayla siyaasadda Soomaaliya geeka kuma qoto oo aysan aragaasan ma yaha kulli kan walan habadaynana ma yaha hub ka gada jari فهمتي marka lan una aamino barto wadanka ta maba ka hayno fahantay in qodobka kale may waha qofka may leeyahay hadii saddex shay lagu helo yalla aamino kora gaar ahaan may waha qofka markii sideed shay lagu helo gaar ahaan qofka markii saddex shay lagu helo yalla aamino kora sideed shay marka may kumid aha qofka inuu soo honesty qof daacad inuu soo qof competence leh karti leh awood leh inuu soo qodobka saddexaadna may leeyahay inuu soo qofka ay reliability inuu soo leeyahay oo macnaha
qof howlkara inuu sheey qof laska hadlaayo karo inuu sheey waay marka sideedas qodob markii helaan iyo wadamadan uu roogna oo kala galbeedka oo kala qofka markaa saytiya may nagadaaya macnaha xisbiyada marka intaas la ku helo sideedas qodob inta badan iyo xoog saarayaan markii sideedas marka qofka la ku hela ya kudubaya ma xisbiga madaxlanka weele kudubada wadanka inuu hogaamiyo markaasoo faantay marka uu meel xisbiyada qabiilada aan ka jaraan qabiil aaminowna Soomaaliya ma jara marka qabiilkan hal isku hilmaamo ereelahay hadii qabiilada la hilmaamo macnaha dadkiis aaminaya inta qabiilada jartona usbuurtan leenahay sidaas widayaalo nololaan leeyahay jaraanano